taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed Cabdiraxmaan Aadan oo safar shaqo ku tagay magaalooyinka Gaalkacyo Baydhabo ayaa kulan isxukureysi waxa uu la qaatay saraakiisha hoggaanada ciidanka asluubta oo laga warbixiyay shaqooyinkii la qabtay. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jenaraal Maxamed Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in saraakiisha tababarka ugu socda dugsiga tababarka saraakiisha ciidanka ee Baydhabo loo soo xiri doono halka kuwa kale loo furi doono. waxaan ku tashanay marka oo go'aanku yahay kuwa loo furay kuwa loo xiray inaan ka dhigno saraakiisha markay dhamaatana ciidankan geynayna asluub inay noqoto ciidan tababaran oo isku filan. waxaa la yiri tira ma aha waa tayadooda isku filan asluub inay noqotaan rabnaa. go'aanka aan madax aan ku gaarnay waa kan nala qaataya ciidan weyn aad nala qaatay. hadda 2 bilood ay ku jiraan saraakiisha inaan ku hormarno ay dhammaan qaataan inay tababarka qaataan. waxaa la rabaa da'yarta in lagu nasto saraakiisha yararka oo dalacday in lagu nastaa la rabaa. sanadka ninkii aan xaquuq lahayn waa loo dalbi doonaa sanadka xaquuqdiisa waa u dalbaynaa uu qaadana marka u diyaar garooba haddii nin la qaado oo meel loo qaado oo meel shaqo ka hayay ninka asiga booskiisa ninkii joogaa la rabaa inuu buuxiyo shaqada ninkaas iyo tanba isku qabto. sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in isbedel ballaaran ay ku sameeyeen dhanka sugidda amniga xabsiga. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.